أجلي دور ما وضي كسر حتى إذا تميره تقري قوانتني تجعلي هني كبدا تاريخنا نلوشا قبري بالذهبك الدليكولي. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلع Somali TV subscribe please. السلام عليكم وإذا سلام دمانتين كسو دوادا channelkeena هلع Somali TV magacaygu waa Caasho waxaa jiro eraya qaaran ka cabsado 3 sano ka hor waxaa isbaranay ninkan la yiraahdo Cabdullah waa maandooc dhalay sababtoo ah wuxuu igu yiri aadankaaga la qof yaana ku jeclaaday midda kale saaxiibtay ay bartay ninkan waalan ana waxaan ku yiri aniga Caasho ah caddeyn tusisa ay jecesha markaas uu mindi soo qaato wuxuu yiri wadnahaygan ku maandooc dhalay maxaa ka qaldaniyo ugu dambeyntii ninkii Cabdullaahi ahaa oo maandooc ahaa waa heshiinay markaas uu igu yiri qorxay Caasho indhadeeraleeyay weegan maxaa sameynaysa waxaa rabaa inaad dilo ninka booskayga wuu idhib u shaqeeyo saas miya dhib ma laha waa fikrad fiican isla maalinta fariin uu isoo dir qorxay seeta Caasho waa dilo booskaada أنا بين أورميلينا جلبان كجيب يقول بوسك سوا عاي مركز ويقول نبى يدل السحن ويقال إلى ننك واتو ننك اللي هذا عبد الله ورا عبد الله محاسمة ننك بوسك هذا وجيب هذا كوما دبي دون لكن العكفر بدنا على يجروا وإنا راضي على عكتاس أنا قاعد بنوقي لو حنكر ورم حكا قلدن دقن يوم محقدش ننك بوسك قاعد شقة ما ذي قاعد سينيس محسكا وهذا سيدا مرة من مياه قرحي وأكو سيدا أنا قاعد كان كنت دفاعي maalinta waxay ka dambeysay ninkan waan ka cabsan jiray maalmaha kamida meel shopping oo dukaan isku soo raacnay boorso qurux badan alla boorsada aad uga helay saaxiibkii Cabdullah boorsada haday helaa wax walba waa helila markaas uu si xun isoo fiiriyay indhiisi waaweynka aniga waan ka cabsaday xankoor ormaando tima jalaale maxaa igu fiirinaysaa naadqoon aamus oo tima ilaan kale dhima laha waa ku soo laabanayso ku carranankii anigoo dhan war Cabdullaahi kaale anigoo ku hayo si carray adiloo maalna ka soo wareegatay albaabka la igu soo qaraac aniga yab waa baninkii Cabdullaahi ahaa war Cabdullaahi dhowr bari iga maqan inta ka imaad waa waree gabadha adduunka u jecel Caasho hadda xataa gabadha adduunka ugu nasiibka badan boorsada jecleed oo ku keenay sida ku keentaniyo sidoo kale maandooc dhalay boorsadan 3 bilood xataa haday shaqeysma awoodide aqoon ay u ka dhiman qofii aniga gacanteyda adeegsada ma fahamta 12 qof aan dhacay ma fahamta aan xoolooda ka xaday aniga tuug weyn ah walaalo ima gali kara war maxaa si ka aniga walwal waxa isra tuugan muxuu ahaa intaan ka badan kuma dul qaadan karo waryaa أني وحم كوشيجا أنا هذا وكلا هرينا حريرك هذا مباهني نينك قرعان ولا لي ما نجا يقول لي لسا ما ولا كوجو مديلا فأنت عبد الله وكلا هرينا وحاس وح صورة الجلا ما وح كلمة إيش يكتب وإجا ابنيو حريرك هذا مباهني أنا هذا حريرك أنتو كويجي ما فأنت ولا لا وحاس وح صورة الجلا ما وح كلا إيش وإجا دب ولا له كوم مباهني ما ندعو دله maxooga igu leedahay mid kalena waxaan rabaa inaad dib dambe isu arkin saas hadii saaxiibaan noqono saaxiibtinimada xataa ma rabi waxa ka soo qaada dunida anigoo ka maqan faanti xitaa I don't want your friendship isla markii ninka Cabdullaahi ahaa wuu cararay anigana waxa islahaa dib dambe uma arki doontid laakiin dhowr habeen kadib waxaba arkabo ninkii oo wato bud inuu idilo raba daaqadan ka arkay uryaa aniga soom ku sheegin ina iga hartid maxaa ka qaldanayo walaalo waa isku daysi walba inaan kaaga haro qorxay waana ka hari waay maxaan sameeyaa marka hadda maadaama idid waa ina ku dilaa maandooc hadii aqoon ay ugu ka dhiman isla markii booliis oo sheegay waa la warstoora gabadha maxaa uga baahan tahay eegina madaxo iga qani ninkan qorshihiisa wuxuu ahaa inuu eeyga igu fasaxo oo wajigayga dhan baabiyo soo ilaawo laakiin taas uma suurtagelin xabsiga ku hubsaday dhowr sano kadib xabsiga markii laga soo daayay fariimahan jabaado ii soo diray wuxuu igu yiri marka fariintan u furabo qofii aniga wali kuma ilaabin waxaana balan ku qaaday mar dhow inaan
wejigaada dhan aan baabiyo adi dhan noloshaada aan baabiyo waana qiso xanuun badan oo igu dhacda layga saara. Waxaan joogay airportka hooyaday ayaa rabay inaan soo booqdo oo muddo 2 bilood amaana arkin waa u xiisay. Waxaa jartay ticket kadib meeshii aan fariistay horta cabaaraa la baaray ugu dambeyn waxaa la yiraahday diyaaradaada 2 saac kadib ay baxaysaa halkaasii fariiso. nin oday oo meesha fadhiyay aad ii soo fiirinaya anigana waa ka cabsaday. Wuxuu igu yiri raad yariso si xun aan ku dilaya aqoon ma ii leedahay dilaya ahay. Anigana waxaa go'aansaday bal kursi dhinacaasa inaan fariisto. Caawa ku dhamaatay waxa iga qaadaysa mala odayo waa yeelka ah. meel kala soo fariistay waxaa dareemay duqi inuu soo daba socdo wili warheeda waxaan timaa bambas kale muxuu ahaa. Waryahay aniga horta aqoon ma ii leedahay ha isoo daba gelgelaysaa ma wiilkaadii ah. waxaa go'aansaday bal musqusha inaan yara galo si aan u fahmo ninkan inuu soo daba galayo iyo in kale. Cabaara meesha istaagay uu soo fiirinaya. wuxuu igu haya caawa oo ku dhamaatay yariso hoosuu ka dhahay. Anigana waxaa dareemay ninkan inuu i dili rabo oo mindiyo watay. Waxaa maqlay diyaaraddu waa diyaar ee soo qaata tikidadiina dhammaan. waa inaa baxaa musqusha ku cararay xaaraa dhug soo sii duqay waaba kanaa. Arniyo mucjisadan muxuu ahaa diyaaraddu ila soo koray hal meel uu ila fadhiyay. waryahay xabada wataa ku dhamaata caawo kaliyaada ka ganacsanaya. aniga ma iga qalaysi saaxiibo waa adduunye birina waa dhimane. ani waxaasniyo ma qoro kowdhe. bye saaxiib hadda cabaar kadib aan ku tumaya. bis ninaa imaada meesha wuxuu ku yiri warheedhe kursigayga ku fadhiday ka kac. Anigana ninka waxaa u sheegay ninkii meesha fadhiyay xabaduu watay wuu i dili rabay. saas miya ninkiina booliisa loo sheegay security qabteen waana la xiray. haddaba ninkaas wuxuu ka soo baxay xabsiga dad badan uuna dilay. habeenkaasna qorshihiisa wuxuu ahaa diyaaraddaas inuu afduubto dad badanna inuu laayo waa uu ka badbaadnaba. asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina. xaaskayga u imaaday laabtaa geliyey